waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأنيقو مع العثمان جامع حسنا gaar ahaan maadada historyga waxaan halkan maanta kasii bilaabi doonaa casharkii hore nagu joogay waana barnaamijkeenii kabara tv-ga iyo idaacadda radio Hargeysa marka la soo xusho wanaagsan insha Allah. casharkeena maanta waxaanu ka bilaabaynaa insha Allah swearing the president. waxaanu ku soo jirnay casharkii hore waxaanu ku soo jirnay doorashada madaxweynaha oo marka doorashada madaxweynuhu dhacdo ee lagu kala baxo cid la doorto tala xusbiyada ay tartamaan cid ay doortaan madaxweynaha soo baxa yani talaabada koobaad la sameeyo waxa weeye waa in la dhaariyo marka swearing the president waa dhaarintii madaxweynaha way haddaba the elected president madaxweynaha la doortay is sworn ayaa la dhaarinayaa in the supreme court maxkamadda sare lagu dhaarinayaa by the chief justice waxaana dhaarinaya gudoomiyaha maxkamadda sare way qodobka labaad this is done tan waxa la sameeyaa waa dhaarintaas after a few days maalmo yarun kadib of the declaration of the result marka lagu dhawaaqo natiijada doorashada marka lagu dhawaaqo kadib maalmo yar kadib ayaa arinta dhaarintuna ay dhacdaa. The president holds office for a term of 5 years. madaxweynuhu wuxuu xilka qabtaa marka la dhaariyo kadib muddo 5 sanadood ah. 5-year term waa muddo xileedka madaxweynuhu waa 5 sanadood. Way vacancy in the office of the president banaanshiyaha xafiiska inuu baneeyo madaxweynuhu. Vacancy waa banaanshiyaha in the office xafiiska of the president xafiiska madaxweynuhu marka inuu banaanaado oo yani shaqadii madaxweynuhu qabanay marka meesha ay ka baxdo ama madaxweynuhu meesha xilka uu baneeyo waxyaabaha marka la soo qaadan karo. A vacancy may occur waxa dhici karta banaanshiyaha madaxtooyada yani xafiiska madaxweynuhu banaanaan karo in the office of the president xafiiska madaxweynuhu before the end of the 5-year term muddada 5 sanadood intaanay dhamaanay muddo xileedkiisu intaanay dhamaan waa hababka madaxweynuhu xilka ku banaan karo ama xilka uu ku waayi karo. This happens when tani waxa dhacdaa marka the president dies markuu madaxweynuhu dhinto waa qodob. qodobka labaad the president is found marka madaxweynaha lagu helo by a tribunal koox marka saraakiil ay ku helaan appointed by the chief justice oo soo magacaabay gudoomiyaha maxkamadda soo magacaabay to be incapable inaan awood u lahayn of performing inuu guto the functions of the office shaqooyinka oo xafiiska shaqada xafiisku marka uu qabanayo haddii la ogaado inaanu madaxweynuhu qaban karayn iyadana waxa imanaysaa inuu madaxweynuhu xilka marka uu waayo ama xilka dee laga qaadaba way waxa halkaa inoogu qoran tribunalku a board of officials appointed to settle disputes. waa koox markaa saraakiil markaa oo loo magacaabo had iyo jeer si ay u dhameeyaan wixii khilaafaada yimaada. tribunal marka waa group of officials
oo markaa waa koox saraakiila markaa xagga markaa maxkamadaha oo had iyo jeer uu soo magacaabo guddoomiyaha maxkamadda sare uu soo magacaabo. waay haddaba haddii ay dhacdo in madaxweynuhu markaa dembi lagu helo oo kooxda markaa guddigaas ay dembi ku helaan chief justice soo magacaabay, this should be approved, tan waa inay ansixiyaan by a majority of all members of the National Assembly, golaha baarlamanka ama golaha loo yaqaano golaha wakiiladu majority waa inay ku ansixiyaan. Majority maxaa looga jeedaa? Majority waa inay ku ansixiyaan baa la yidhi marka la doonayo madaxweyne markaa in dembigaa lagu helay in la ansixiyo oo la socodsiiyo. Majority waa two third majority, 3/2 inay golaha representatives ama golaha wakiilada ay isku raacaan. waayahay okay, taasi waa qodobka kusii xiga. madaxweynuhu xilka waayi karaa on the National Assembly marka golaha loo yaqaano golaha wakiiladu passes ay gudbiyaan a motion, codsi ay gudbiyaan iyo soo jeedin of impeachment, xilka xayoobina against the president oo lagaga soo horjeedo madaxweynaha. This must be approved, tan waa inay had iyo jeer ay ansixiyaan marka la doonayo inay ansaxdo by the Senate, golaha guurtida waa inay ansixiyaan by the Senate, golaha guurtidu waa inay ansixiyaan. waay golaha guurtidu waa inay ansixiyaan. waxaa meesha inoogu qoran emotion. moshinku waa maxay? moshinku waa proposal written by some of the parliament members, some of the representatives, motion bay keenayaan had iyo jeer ay keenaan laga keenaa. mooshinka marka had iyo jeer laga keenayo waxaa soo jeediya qeyb ka mid ah golaha wakiilada ayaa soo jeedinaya. marka mooshinkaasi wuxuu noqon karaa mid positive iyo mid negative, mid madaxweynaha laga soo horjeedo iyo mid lagu taageero, labada way noqon kartaa. laakiin tan halkan aan u jeedna waxa weeye waa in madaxweynaha mooshin ka dhana laga keeno oo hadda xilka xayoobin ah. ereyga waxay nagu soo waa impeachment, yani impeachment waxa weeye an accusation to bring an accusation to bring in la keeno. maxaa la keenayaa? an accusation, eedayn against, lagaga soo horjeedo the president, madaxweynaha. asaa impeachment la odhanaya. marka madaxweynaha impeachment baa la saaraya. marka waa in la keenaa mooshin ka dhana madaxweynaha sano xilkii dee lagaga qaadayo ama laga xayuubinayo. taas marka ay dhacdo maxaa laga doonaya? shardiga kale kusii xidhana waa maxay? this must be approved by the Senate, tan waa inay ansixiyaan golaha loo yaqaano Senate-ka. golaha loo yaqaano Senate-ku waa maxay? Senate means waa the upper house of the parliament. waa aqalka sare ee baarlamanka. oo baarlamanta waxaa la isku yidhaahdaa ereyga baarlaman waxaa la isku yidhaahdaa House of Elders iyo House of Representatives. aqalka wakiilada iyo aqalka guurta, yani golaha guurta iyo golaha wakiilada. laakiin magaca la isku yidhahay labadooda ay wadaagaan waa maxay? waa parliament. marka haddaba sanadku waa qeyb ka mid ah ama waa aqalka sare ee loo yaqaano ee baarlamanka ama waxaan u naqaano golaha guurtida. golaha guurtida markaa maxaa laga doonayaa? inay arrintii ansixiyaan. hadday golaha guurtida markaa ansixiyaan impeachmentka, hadday ansixiyaan iyaguna ay proof gareeyaan, sidaasuu madaxweyne markaa meesha kaga baxaya. waay taasina waa mid madaxweynaha meesha lagaga saari karo.
qodobka ku sii xigay madaxweynuhu xilkiisa ku hay kara waxaa ka mid ah petition is successful in the Supreme Court in maxkamad ay dembi kaga caddaado petition in maxkamadda uu dembi kaga caddaado petition macna marka madaxweyne la dacweeyo petition macnaheedu waxa weeye a written document signed by a person or group of people demanding or asking for an action from the government way petitionka marka la soo qoro magal dacwadeedka madaxweynaha lagu soo oogo tusaale ahaan oo kale waa petition muxuu noqonayaa waa qoraal markaa ay soo qoreen oo markaa sharci ah oo ay saxeexeen qof ama group koox ay saxeexdo laguna dalbanayo ama lagu codsanayo in tallaabo laga qaado markaa tallaabadaas xagga dawladda markaa ay ka imanayso marka cid la dacweynayo markaa way marka macna waxa loo jeedaa in madaxweynaha dembi lagu helo uu galay tusaale ahaan oo kale khiyaamo qaran oo kale waxyaabo mamnuuca madaxweynaha ka haduu ku kaco kale ama wadankii khiyaameeyo oo kale dee waxyaabaha lagu qaadayo petitionkaas ka mid ah taas ka mid ah waxay xilka ku ay kara madaxweynaha xilka laga xayoobin kara ay ka mid tahay election of the deputy president doorashada madaxweyne ku-xigeenka election waa doorashada of the deputy president madaxweyne ku-xigeenka deputy vice president madaxweyne ku-xigeenka marka doorashada madaxweyne ku-xigeenka waay oo deputy waxaa la macnaa vice president madaxweyne ku-xigeenka ayaa la macnaa waay haddaba during the campaign xilliga lagu jiro ololaha each candidate musharax kasta in a presidential election oo u tartamaya doorashada madaxtooyada u tartamaya nominate waxa uu magacaabaa a person qof who is qualified u qalma for nomination for an election magacaabida doorashada as a candidate for deputy president isagoo u noqonaya isaguna musharax u noqonaya madaxweyne ku-xigeenka markaa u noqonaya marka qof u qalmo oo hawshaa qaban karaya ayaa had iyo jeer markaa uu soo xulanaya yaa xulanaya the president madaxweynaha markaa u sharaxan inuu markaa madaxtooyada markaa inuu marka xilka qabto wuxuu soo magacaabayaa qof qualificationkiisu lagu qanacsan yahay oo xilka qaban kara ayuu soo magacaabaya madaxweynuhu qofka madaxweynaha markaa u tartamaya waa xilliga campaignku markaa uu jiro marka saasuu ku imanaya madaxweyne ku-xigeenkiina waa nomination buu ku imanaya isaga marka hore waa lasoo magacaabayaa saasuu markaa ku imanaya inuu markaa isna tartanka markaa u galo the term of the deputy president runs until xilliga ama muddo xileedka the term of the deputy president waqtiga muddo xileedka madaxweynuhu wuxuu socdaa until ilaa iyo the person next elected president at an election is soon ilaa iyo la dhaarinayo qofka isaga ku xiga ee la doortay ilaa la dhaarinayo ayuu xilka sii haynaya maana xilliga isaga la doorto ee madaxweynaha tusaalaano kale isaga iyo madaxweynaha la wada doorto ilaa iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee markaa ama marka xilliga doorashada labaad la gelayo ayuu markaa xilka uu haynaya ee xilka uu kaga tegayo marka madaxweyne ku-xigeen lasoo doorto markaa bedelaya the deputy president madaxweyne ku-xigeenku assumes waxa uu taagan yahay the office of the president xafiiska madaxweynaha ayuu markaa qabtaa when the president is absent markuu madaxweynuhu maqan yahay when the president is away markuu madaxweynuhu uu meesha ka maqan yahay absent markuu madaxweynuhu yahay when the president is absent markuu madaxweynuhu uu taalo uu maqan yahay de halkii madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha waxaa sii gelaya madaxweyne ku-xigeenka oo shaqadii madaxweynuhu qaban jiray oo dhan qabanaya waxyaabaha kale markaa madaxweynuhu ku-xigeenku uu qabto waxaa ka mid ah wax kasta oo uu madaxweynuhu u diro oo de waa assistant buu u yahay maxay marka la eegayo madaxweynaha assistant buu u noqonaya waay okay parliamentary elections waa doorashada baarlamanka
laakiin presidential elections sida doorashada madaxtooyada oo kale ayaa parliamentary elections doorashada baarlamankuna are held iyadana loo qabtaa in every 5th year shantii sannadoodba hal mar and 5 years yani waa 5 year term ayaa iyagana la doorta one is a 5 year one is a 5 year sanadkii hal mar ayaa la doortaa oo taas iyaduna waxa weeyaan sidii madaxtooyada oo kale baarlamaanka marka la dooranayana muddo 5 sannadood ayagana la doortaa way qualification for an election as a member of parliament qualification laga doonayo yani necessary requirements qualification waa maxay qualification means required necessary required qualification waxa weeye oo waxa laga doonayo ama necessary requirements waxyaabaha laga doonayo madaxweynaha laga doonayo baarlamaanka ee daruuriga u ah shardiga u ah inuu meesha soo galaba dee maxaa ka mid a markaa shuruudaha ka mid ah for one to be declared to contest as a parliament candidate for one to be declared markay caddaato qofku to contest inuu u tartamayo oo contest to compete in markaa u tartamo oo qofku noqonayo tartamo ah ama u loolamo as a parliamentary candidate musharax markaa baarlamaan markuu qofku u tartamayo a person must fulfill the following conditions waa inuu qofka baarlamaanka isku sharaxayaa shuruudahan buuxiyaa shuruudaha uu buuxinaya laga doonaya waa maxay kow is a registered as a voter horta waa in marka hore loo diiwaangeliyaa codbixiye waa in loo diiwaangeliya waa qodob satisfies prescribed educational background waa in lagu qancaa waxbarashadiisa ama tusaale ahaan educational backgroundkiisa waa in lagu qancaayo qoraalku soo gudbiya waa wax la qaadan karo waa inuu yahay waxaa ka mid a shuruudaha ka mid a moral qof isku inuu yahay qof confidence ah yani moral qof isku kalsoon oo confidence leh ereyga moral imika waxa meesha ugu jirtaa confidence confidence qof markaa isku kalsoon oo kalsooni markaa leh waa inuu markaa uu yahay waay unethical requirements iyo waxyaabihii akhlaaqiyaadka laga doonayay tusaale ahaan oo kale inaanu debalwadaha xun aanu qofka tusaale musharaxa noqon aanu lahayn ama aanu khamriga cabin ama aanu corruption iyo musuqmaasuq aanu aqoonin qof balwadaha xun lagu yaqaanay waa inaanu ahayn waxyaabaha markaa conditionska lagu xidhayo qofka baarlamaanka ama xubin baarlamaan noqonaya ayay ka mid tahay ethical requirements waxyaabihii loo baahnaayo oo dhan ee tusaale ahaan akhlaaqiyad iyo dhaqan ahaan iyo waxaas loo baahnaayo oo dhan ayaa ka mid ah waxaa ka mid a shuruudaha laga doonayo qofka xubin baarlamaan u tartamaya ama noqonaya is nominated by a political party waa inuu soo magacaabaa by a political party xusbi siyaasadeed oo inaga waddankeena oo kale imika marka la eego dee 3 xusbi baa ka jira oo national parties ah 3 xusbi oo 3 xusbi qaran baa ka jira 3daa xusbi oo mid ka soo baxa qofka xubinta baarlamaanka markaa isku sharaxaya dee waa inuu 3daa xusbi midkood ka soo baxa yani 3daa midkood haddaanu ka soo bixin macna ma noqon karo markaa qof isa soo sharixi kara markaa dee ama la dooranay had iyo jeer markaa aqlabiyada waa inuu ka yimaadaa 3da xusbi midkood waa inuu ka yimaadaa sound of mind waa inuu yahay qof maskax ahaan iyo jir ahaanba caafimaad qaba oo yani fikirkiisa iyo thinkingkiisa xor markaa u ah oo cabiri kara oo wax xallin kara waa inuu yahay has been Somaliland citizen for at least 5 years before the election waa inuu uu yahay qofkaasi qofka isu sharaxaya yani Somaliland citizen for at least ugu yaraan waa inuu joogay waddanka at least ugu yaraan 5 years before the election for the last 5 years waa inuu waddanka joogay for the last 5 years waa inuu joogay qofkaasi waddanka 5 sannadood ee ugu dambeeyay for the last 5 years 5 sannadood ee ugu dambeeyay waddanka qofkaasi waa inuu joogay oo aanu qof waddanka yani meel kale ka yimid aanu hayne sababta sidaa loo leeyahay waxa weeye war qofku xogagaal u noqdo dadka xildhibaanka u noqonayo ama dadku hadhow matalayo ama degmooyinku matalayo waa inuu xogagaal u noqdaa oo yaqaanaa baahiyaha ka jira iyo dadkan waxay u baahan yihiin iyo adeegyada bulshada siday yihiin si dadkii u matalo maadaama dadkii matalayo waa inuu ahaadaa qof xogagaala oo aan ka imanin meelo fofo ka imanin ka ugu yaraan maxaa shardi ah 5 sannadood waddanka qofkaasi inuu joogay si uu ogaado waxa la doonayo iyo waxa hadhow laga rabo
hadduu doorashada markaa uu helo ama uu kusoo baxo. waay procedure at parliamentary election waa page 97 ayaynu maraynaa. procedure waa stepska the steps. procedureku waa maxay? procedure means steps. the steps waa dariiqa la raacayo at parliamentary election doorashada baarlamanka marka la dooranayo qofkii waxa weeyaan dariiqu raacayo ama wadadu marayo. waay procedure at parliamentary election waa dariiqa uu marayo qofka marka la doonayo inuu waxa weeyaan doorashada baarlamaanka. oo page 97 baynu nidhi waad la soo bixi doontaa arday insha allah. political parties nominate xusbiyada siyaasadda waxay magacaabaan candidates musharaxiin within a specific period muddo cayiman ay soo magacaabaan. yani time cadayn baa loo qabanaya marka oo loo soo magacaabaya. they are supported by at least waa inay ugu yaraan ay taageeraan ugu yaraan at least 2,000 oo qof and above registered voters in the country. 2,000 oo qof oo waddanka ka diiwaan gashani waa inuu qofku markuu doonayo inuu musharax noqdo musharax baarlamaan markuu noqdo waxyaabaha laga doonaya waxaa ka mid ah inuu 2,000 oo qof uu ka haysto dalka uu ka haysto. oo hadduu shardiga marka 2,000 oo qof uu haysto marka 2,000 oo qof oo haystaana waa voterska registered voters waa dadka u diiwaan gashan codbixinta u diiwaan gashan. marka waa inuu haystaa 2,000 oo qof waa inuu waddanka ka haystaa. markaasuu shardigaa uu buuxiyey oo uu noqon karo procedureka uu bilaabi karaayo nidaamkii doorashada uu ku gelayay waxaasoo dhan markaa uu sii socon karaa. marka maxaa shardiya inuu 2,000 oo qof markaa dadka voterska uu ka registered voters ama codbixiye dadka u diiwaan gashan codbixiyaasha waa inuu ka helaa 2,000 oo qof. waay taas waa qodob markaa. okay before the election intaan doorashadu dhicin candidates are given musharaxiinta waxaa la siiyaa 3 months 3 bilood to campaign oo ay ku campaign gareeyaan and sell oo ay ku iibiyaan their policy siyaasado ay kaga iibiyaan to the voters dadka codbixiyaasha. oo waxaa la siinayaa 3 bilood oo markaa ay galaan markaa campaign oo dadka ay usoo bandhigaan waxay hadhow doonayaan inay qabtaan. hadii jeer marka ololayaasha doorashada la gelayo intaan doorashada la gelin dee muddo campaign ka horeeya oo uu qof walba uu doonayo inuu kusoo bandhigo wuxuu dadka doonayo inuu uu qabto. hadduu xildhibaan baarlamaan uu yahay tusaalahaan oo kale inuu markaa uu sii sheego siyaasadiisa dadka uu ka iibiyo qaabkuu doonayo inuu xu qabto ama habku doonayo dadka ugu shaqeeya hadhow. marka shardiga maxaa ka mid a 3 bilood yani waa procedureka la maraya ka mid tahay inuu 3 bilood markaa ka hor doorashada uu campaign ka galo. voters cast the voters dadka codbixiyaasha ahi voters cast means give. dadka codbixiyaashii provide waxay bixiyaan codkooga ayay bixiyaan. goormay codkooga bixinayaan? waxay codkooga ay bixinayaan in the polling station iyagoo ku bixinaya xarunta codaynta. polling stationku waa halka lagu codaynaya waa goobta codaynta between 6 am and 6 pm inta u dhaxaysa. marka waa hal maalin oo the one day bay doorashadaas ay dhacaysa 6 ilaa 6 ay dhacaysa doorashadaas. marka 6 ilaa 6 marka yani procedureka la maraya ka mid tahay in doorashada codbixiyaashu ay bixiyaan codkooga ay dhiibtaan ay iyagoo goobaha markaa codbixinta ku dhiibanaya 6da subaxnimo ilaa iyo 6da galabnimo. the ballots are counted codadka dadna waa la tirinayaa at the polling station waxaa lagu tirinayaa goobta codaynta ayaa lagu tirinaya. and result announced natiijadana halkaasaa lagaga dhawaaqaya. then the results dadna natiijada ka soo baxda goobta codaynta are taken to the tallying center waxaa loo qaadaya xarunta guud ee tirinta ayaa loo qaadaya where they are tallied halkaasoo lagu tiriyo verified lagu xaqiijiyo prove it to be true verification prove it verified means prove it to be true inuu waxaan sax yahay la soo qoray ama sanadada waxa ku jira waa inay wax sax yihiin ayaa lagu sameeyaa verification wala cadeynaa marka waa la sii check-gareeyaa waxa marka aad baa loo sii xaqiijinaya marka way
then the results are taken waxaa loo qaadaya to the talent center xarunta waxaa loo qaadaya yani tirinta waa xarunta guud markaa where they are tallied halkaasoo lagu tirinayo verified yani tallied means counted and tallied halkaasoo lagu tirinayo maxaa lagu tirinaya marka codadkii dee la dhigtay baa lagu tirinaya verified lagu xaqiijinayo oo lagu hubsanayo and winner declared waxaana lagu dhawaaqayaa maxay qofka guulaystay baa lagu dhawaaqayaa halkaasoo casharkeenii labaad maanta aynuugu joogaa insha allah waa inoo casharkan iyo casharka ku xiga insha allah asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno